daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkan imtixaanaha ee ururada sirta ah ee ka shaqeeya dalkeena hooyo xilqadii koobaad qofka aan daawan waxaan u dhigi doonaa commentiga isagoo halkaasi kala soo qabsan doono xilqada koobaad. xilqada labaad waxay ku bilaabaysaa sida tan: miiska waxaa saarnaa khamri cas waraaq sida saddex xagalka u taala oo ay ku qoran tahay welcome to the brotherhood, iyo sidoo kale waxaa taala hees magaceedu yahay welcome home. markiiba gabadh dhar madow xidhan ayaa masraxa soo fuushay, waxaabay qaadaysaa heesta micnaheeda ama midhaheeda ay miiskayga saaran yihiin, waxaana ka mid ahaa heesta erayadeeda welcome to where time stands still no one lives and no one will. halkaas heesta markan kaga gudubna heeskaas oo ay laab qaaday misana cabsi ugu abuurtay ayuu mid madow ii yimid isagoo madaxa hoos u foorarinaya, waxaanu igu yidhi mudane waa kuu diyaar, gaadhigii ku qaadi lahaa dabaqa hoose ee hudheelka ayaa la igeeyey, waxaa igu sugaya gaadhi kala jiidan. markaan gudaha u galay waxaan kula kulmay saaxiibkay, waan ku naxay oo waxaan ku iri war maxay sidani tahay. isna waxa uu igu halceliyey waadigii muddo daba socday inaad nagu soo biirto ay codsigaaga laba jeerba diideen Club of Rome iyo Scottish Temple. hadda waxaa timid fursad aad isku muujin karto, haddii aad daacad ka noqon karto howlaha lagu igmanayo waxaad heli doontaa xubinnimo buuxda. magaalada waan kasii baxaynaa, waxaan gaadhnay dhisme dhulka hoostiisa ka dhisan oo aad yaabaysa qaabka loo dhisay. saaxiibkay gaadhigii ayuu ku hadhay, anna laba nin oo dhar madow xidhan oo ay qoortooda suran tahay saddex gees cas ayaa intay garbahay qabteen ii kaxeeyey qol madow oo iftiinka qura ee ka baxaya yahay shamac. waxaan goob madow soo fadhiya nin darajadiisu tahay 33, magaciisana igu sheegay Paul Macmillan. wuxuu weydiiyey in aan ku qanacsanahay inaan kusoo biiro ururkooda Dark Marrow. anna hore ayaan ka aqbalay. habeenkii halkaas ayaa xaflad weyn la igu sameeyey. 3 habeen kadib aniga oo sidii meeshii ugu jira ayuu Paul ii kaxeeyey qol madow. deeta ilays ayaa lagu qabtay gidaarka, waxaana la tusay khariirad madow oo ay cad yihiin laba meelood. waxa uu weydiiyey Paul, labada meelood ee cad miyaad garanaysaa? waxaan ku iri mid waa geeska Afrika, ta kalena waa bariga dhexe. Paul ayaa igu yidhi waa dhulka Soomaalida, ta kalena waa Sham. waxa uu ii raaciyay in khariirada la sameeyay shirkii Berlin ka dhacay ee 1884. wuxuu kaloo ii sheegay arrin argagax igu riday Paul Macmillan, wuxuuna yidhi shirkaas waxaa fadhiyay kii samada ka soo dhacay. markuu arkay in aanan fahmin ayuu igu macneeyay idinku waxaad u taqaanaan shaydaan. waxa uu noo sheegay in dhulka Soomaalida iyo Sham ay yihiin labada nuur ee u baahan in la dagaalamo si qorshahoogu u fulo. markaas ayaa cabsi igu abuurantay, waxaan jeclaystay in aanan halkan mar dambe ku soo noqon. waxaase cod gudaha igala hadlaya igu yidhi xog badan aad ogaatidee adkayso. cidda ila hadlaysay ma garan ee beri dambe ayaan ogaaday in uu igu shaqaysanayo xoog ka awood badan kuwa aan ku biiray. Paul wuu dareemay in buuqigu furan yahay, waxaanu ii sheegay markaan koro salaanka kala sareynta in cabsidu iga baabi'i doonto, laakiin la iga baahan yahay nafhurid laxaad leh. waxa uu si toos ah iigu sheegay baahida xilligan keentay in loo baahdo dad Soomaali ah oo gudaha ka dagaalama. iyagoo hadalkooda sii wata ayaa waxay yiraahdeen waqtigan waxaa nagu adkaatay in aan dibadda kala dagaalano, weliba wax walba waxay isbedeli doonaan marka la gaadho December 22 2016. waxaan jeclaystay inaan ogaado sababta xilligaas wax walba isku bedelayaan. waxaad moodaa inuu maqlayo faqa gudahayga ka socda. waxa uu ii sheegay in xog badan oo aan loo sheegi jirin xubnaha Dark Marrow aan nasiib u helay in la ii furo. sirtan waxaa la siin jiray inta darajadoodu ugu hooseyso 22. cidda fashilaysan xukunkoodu waxa uu ahaa dil. waxa uu igu yidhi hadda sixirkii aanu dhulkaas kula dagaalami jirnay waa uu istaagay. 2012 waxaa kor u kacay quwadda ruuxda aadanaha oo halis weyn ku haysa qorshooyinaha aanu ku dhexgelayno ama ku dhexlaynayno awoodda dunida. December 22 2016 marka la gaadhana waxaa cirka ka soo muuqan doona xidig cusub oo awood badan. xidigaasi markuu soo daahiro ma shaqayn doono qorshe kasta oo aanu ka leenahay dhulka Soomaalida. dagaalkii hore noo qorshaysnaa waanu fulin doonaa inta aan la gaadhin 2016. dhulka Soomaalida waxaanu qorsheynay in 5 maamul loo qaybiyo.
waxa sidoo kale 1984 miiska aanu soo saarnay ama soo dhignay in marka la gaadho 2020 aanu dhulka Soomaalida ka sameeyno 10 dawladood oo mid kastaaba cadow ku tahay tajaarka la halkaas markuu marinaya ayuu joojiyay hadalkii Powell waxaanu ii sheegay in xogta inta hadhay la isiin doono markaan fuliyo hawlgalka koowaad ee qorshaha gacanta la iga saaray qolkii madooba ayaa uu iga soo saaray waxaanu ii keenay qoldii ka soo urayo biyo ayuu madaxa iga shubay waxaan markii koowaad u soo dhoofay dalkayga aniga oo cadow ku ah daawadayaal intaas waxaan kusoo gabagabeynaa xilqadii labaad ee barnaamijkeena taxanaha ururada sirta ah ee ka dhex shaqeeya wadankeena barnaamijka qaybta saddexaad intaan ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.